خليف عيسى مدن ومشرح مدحوينه oo taagan xilka madaxtinimo ee Puntland 2019 iyadoo xilligan ay muddo kooban ka harsan tahay doorashadii Puntland waxa ay soo taraya xafladaha kala duwan ee loo qabanayo musharax Khaliif Ciise Mudan hadaba habeenkii xalay xaflad si heesara loo soo hogaasimay oo ka qabsoontay hoolka xafladaha ee jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garowe ayaa waxa ka soo qayb galay ardayda jaamacadaha siyaasiyiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ardaydan ayaa sheegay inay taageersan musharaxa sidoo kalena waxay su'aalo ka weydiiyeen siyaasadda uu ku hogaamin doono haddii alle ku guuleeyo muddaxireedka 5 ee soo socota soonahay dhalinyarada dalku waa 75% waxay u badan yihiin dhalinyarada dhigata jaamacadaha waxaan musharaxa aan rabaa inaan uga faa'iideysto dhalinyarada dalka jaamacadaha ka baxda in la siiyo fursadda shaqaaleysiinta muddaynta koowaad sidoo kale in dhalinyarada la wadaago fikradooda oo inta kaambeynka lagu jiro iyo inta kaambeynka laga baxaaba mar walba la socdo arrimahaas aan u arkay musharaxa haddaan u gudbino aragtiyada in wax ka qaban karo yani macquul uu ku yahay musharaxa macquul ku ah dhibaatooyinka ugu badan oo hablaha aqoon-yahanada haysta waxaa ka mid ah booska siyaasadda markii gabadhii ay wax badan barato oo ay isku talagasho inay yani meel ka muuqato amba ay xildhibaan noqoto amba ay wasiir noqoto waxaa haysta caqabadaas caqabad ugu weyn ay tahay caqabad qabiiliya oo qabiil kasta ay ku doonayaan waxa uu dalkaan usoo maray qof kasta waxa uu muqaati ka yahay inuu Puntland u soo seexday banaanada xambalan sidaa darteedna aan ka rajeynayno inuu la soo hogaamiyo doorashada Puntland waxaan leenahay waan ku faraxsanahay aan leenahay dhalinyarada gobolka iyo guud ahaan dhalinyarada kala duwan ee halka fadhida mudane musharax su'aasha koowaad waxa weeye maxaa jaamacadda maadaama ay tahay jaamacadaha ugu sarreeya Afrika ama Soomaaliya ama Garowe كوّنت محل شرعنا كان خصوصاً جعلنا نقبل ساعة وأقول طلبنا المدينة وحوية مرشحين فربضان أما مدعونيال فربضان ووضع كان صومري يوم الباوي بالشيء وحسن قوانيا كاسان قوانيا بيجمع عبر السمانية كنال السمانية وحبرش في نبرشة هذا ما هي الأرق وحي بلغ غاية مركي كان بين رزقه يكون شرعين هذا كنت ولاد تام شرحينتي كاوريسي وبلغات كله في الوعي مشاركة تستمر في الدنيا وكان بينك سكوكرا وحريد ولا الصولي السنة markii aad wajibka uu qabtana waxa dhacda inuu soo waxba ka soo qaaday ama soo sameeyay oo soo dhaafin madaxda musharaxa ka ay qorshaysan arrintaas madaxda madaxweyne siyaasad qayaxan oo kugu rabto inaad dalka ku haysto siyaasad qayaxan oo dalka ku haysto ama ku hoggaamiso adigoo aan ku jinaala oo shirkada ciidamada xukuumadda yaqaana haddii 8 January aad ku guuleysato xilka madaxtinimada dowladda Puntland ciidamada Puntland oo ka dhigaysa ciidan loo yaqaan ciidankii la yaqaan sida guutada ilaalinaadka guutada taliyaha malaha dhankiisa musharax Khaliif Ciise Mudan oo ka jawaabay su'aalaha ardayda weydiisay qabashada xilka madaxtinimo ayaa ku jawaabay sida tan أحمد عبد الرزاق نكور يبغى وحير محاد قبريس جامعة بريغ أفريقيا من بعد المشاريع كل جامعة مسؤول دراسة عرفت عين إن عندك نميال كستوى المرنة إن عندك واحد بدل وضع منه إن نميال كستوى وأوبا واحد رجوع كذا منه جامعتنا وهويدي جامعتها بنتلاند وانا استشارين وحلوة وحنوها بنيا وحوفي عن الله إن شاء الله جامعتها وحوفي عن الله بنيا إن شاء الله سؤال شلبات وحي شكي ما كجرى مستر أحمد هنا وحى فلنا كل ما نخش فلنا وأنا كعدين يا مركان بلغ هذا من بلغ دوتا يضرب بنا فلنا تاسع طول سنة سيرا سدس أبا ما زنتا بمر وطنية وده كيف فكر إنسان واحد معك عبر سيسر حرية الصومية سلام حرية الصومية سلام وطان توتاو غاطي
4 bilood ku dhawaad u joogay goran haddana waxaan idin ballanqaadayaa intaan frontiga jiro inta xafiiska jiro inta frontiga badan doonta dumarka maxaad uga banaysaa waxaan maranayaa haddaayaan ka hadlay marka taa waa ka boodaya sababta jiro raalliga awtuud سلمان محمد أحمد وعير واحد الخلافات بدل ما كسر الموضوع دولة الفدرال كاي وما هو قبل اليوم كو وين المقدمة هم تستعد ما هو قبل اليوم وعير سمعنا دولة الفدرال كاي صالحان بنتلان وما هو قبل اليوم دولة الفدرال كاي سمعنا دولة الفدرال كانوا وحكي كومنتها المعمول البلدية خلافات واجران وهو يدعان لكن واحد كان هي اسفهم اسفهم الله هي اما على شوي ولا كان عبر هي كل على شوي وبعد في عين محمد أحمد شامع محمد بدانشي تلفزيون كعربي SBS قروي